wixii tagay waxba kama bedeli kartid. ilaahay wuxuu tilmaamayaa wama tashaa'una illa an yasha Allah. ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kale oo idinku dooni kartaan ma jirto. in allaha kaana aliiman xakiima. bal waxaad ka calaacalayso waxaba laga yaabay khayrku saa ku jiray. wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. ha oranin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay. weligaa ha moodina wakhtigu ku dhaafay. dadka badhbaa isle wakhtigiiba tegaya intaan meesha fadhiyay inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta. biniaadamku caqliguu ka gaboobaa. haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowday. waxaa laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa. dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha. nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiila. fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo. geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer. oo innaga iyadoon qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa una leenahay waan gaboobay. soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha. qofka soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way iga dhammaadeen. ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin. ha niyad jabina hana murugoonina. idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihiin. haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan. xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo. qof wax soo saar le ahaw. qof wax tara ahaw. noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay. haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag. ساوجد بو النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جاريدك كهر رسالة فرصات هيسطو فرصات وحلوقو قبطينات هيسطو واحد يريسان يساوي حوي النغضة واحد يريسان سبحانه قد شيء ده صدر قرآن أين قيبتها وح كل يرسمه حتى لا وهذا المالك استصدر قيب وقرب من القرآن كردمين حتى صدر قيب وقرب من القرآن كردمين waxay dhahaan dhowr iyo 10 sanadood dadku dhameynaysa hadaad maalin kasta sadar qaybto. hadda waa sadar hal sadar. waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay. haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta. وهي سنة كوا صدح بقولي شنو اللحدة مع الموت ضد مالك استبيج قرطو معناه دو حويان ويران بوك صدح بقولو بيج كبضن هي تقولي كرتا لكن هذا استر هذا ما حاشي عن غريبة بوك نقدون تام حام بو حاشي كقريدونا أقونتو هي وحقبتكو هي وحتركو تراكمك إن بير تابي وحكو نقطة وحكستو بيرا آخر كوحو تقام حي وحقي ملابو النقطة taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin. ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono. ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay. adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen. jahliga fadhiisiyay. beersi loo qoto ma garanayo. wax kale si loo sameeyo ma garanayo. aqoon si loo barto ma garanayo. jahli baa fadhiisiyay. jahligu marka dadka uu duleeyaa. idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة الشيء يا aqoonta kamida. تقدر توقف أيضا له جهلني ما هيسطه. ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو انتليجنس كيسو وصريه ولو عقل بدني هي مر هدان منتج هنا wax soo saaraynin waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya
ma aha inaad caqli badan tahay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garaadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay waxay yidhaahdaan daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira